wuxuu ahaa hogaamiyihii dagaal ee ugu weynaa ee soo mara taariikhda Islaamka. Marka aynu ka soo tagno nebiyadii Ilaahay soo diray, ninka aynu ka waramayno taariikhdiisa waa nin ka weyn raggii militariga ahaa ee dunida taariikhda ku lahaa ee soo maray, sida ninkii aynu xasuusano Alexander the Great ama Napoleon Bonaparte, ninkii madaxda u ahaa Faransiiska xukumi jirayna, iyo reer galbeedka Adolf Hitler ee ahaa madaxii Naaziyiinta ee wadanka Jarmalka. Raggaas oo dhan waxa ay ku caanbaxeen inay ahaayeen rag hogaamiyaal ah kuna wanaagsan xagga militariga. Kama waramayno dhanka akhlaaqda iyo diinta, waxaynu ka waramaynaa dhanka hoggaanka iyo militariga iyo caskariyadda. Raggaas waxa ay ahaayeen rag ku wanaagsan adduunka oo dhan uu u qiray. Ninkan aynu ka waramayno waa nin raggaas oo dhan ka sarreeya oo ka weyn. Waa ninkii qorshayahankii ama taatiko-dejiyihii ugu weynaa. Qorshayaasha uu dhigay ilaa hadda bani'aadamka nooli ay daraaseeyaan oo cilmi baaris ay ka sameeyaan. Ninkan aynu ka waramayno waa ninkii cagta mariyay dowladihii ugu weynaa adduunka xilligaas, waa dowladii Farisiyiinta. Waa ninkii la dagaalamay dadkii ka laabtay diinta ee nebinimada sheegtay. Ya Allah, ninka aynu ka waramayno nin kale ma ahan, waa Khalid ibn al-Walid, Allah ka raali noqdee. Waa sayftii Allah subxaanahu wa tacaala ee galka ka baxsanayd, sayfullahi al-masluul. waa geesigii Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. daawadeel kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Magacaygu waa Dr. Yacquub Xasan. Khalid, Allah ka raali noqdee, wuxuu galay sida culimmada taariikhda ay tilmaameen 9 dagaal. weligiina lama jibin, weligiina goob dagaal uu istaagay laguma jibinin Khalid ibn al-Walid, Allah ka raali noqdee. waa nin markii uu dagaalada uu galo maalin kasta ku talageli jiray inuu goobta dagaalka ku dhinto, haddana wuxuu ka soo laaban jiray asigoo guuleystay. waa ninka jirkiisa ama xubnihiisa oo dhan aanay ku jirin xubin ilaa haddii ay jirto ay ku tiilay waran ama seef ama fallaar ama leeb ama dhagax ama qaanso lagu dhuftay, haddana nool oo dagaalamaya oo wax iska dhicinaya. waa ninkii nabigeena sallallahu calayhi wasallam uu ku tilmaamay waa seefkii Allah subxaanahu wa tacaala ee galka ka baxsanayd. aynu ka bilowno meeshii uu ku dhashay, uu ku barbaaray. Khalid ibn al-Walid, Allah ka raali noqdee, wuxuu ku barbaaray magaalada Makka, magaaladii nabigeena sallallahu calayhi wasallam. deegaankaas waa deegaan ay carabtu markaa deganeyd ay ixtiraami jirtay, sababtoo ah waxaa ku yaalay Kacbada ama qiblada muslimiinta. sidoo kale dadka degan laftigooda waxay lahaayeen maamuus iyo ixtiraam. qabiilka uu ka soo jeeday Khalid ibn al-Walid, Allah ka raali noqdee, wuxuu ahaa qabiilkii reer Quraysheed. si dhab ah looma yaqaano taariikhdii uu dhashay Khalid ibn al-Walid, laakiin waxaa la qiyaasayaa 25 ilaa 30 sano ka hor hijradii nabiga sallallahu calayhi wasallam, kuna beegan 592 miilaadiga. wuxuu ku dhashay guri lagu yaqaanay hanti iyo maamuus. aabihii waa Waliid ibn Mughira, wuxuu ahaa hogaamiyihii reer Bani Makhzuum, ahna raggii xagga hogaaminta ugu sarreeyay Quraysh. asigoo yar ayuu fardafuulka bartay. aabihii wuxuu lahaa kolonyo ganacsi ah oo aadi jirtay dhulka Shaam, taasoo keentay in Khalid uu booqday dhulkaas dhowr goor oo kala duwan, lana kulmo ummado kala duwan, kana kasbado indhergaradnimo iyo aqoon dheeraad ah oo ku aadan ummadahaas kala duwan, sida ganacsigii ka imaan jiray dhulkii Masar, kuwii ka imaan jiray dhulka Faris, iyo kuwii ka imaan jiray Ruum. aabihii wuxuu ahaa raggii ugu horeeyay ay cadaawada xun u muujiyay Islaamka, heer uu Allah subxaanahu wa tacaala ka soo dejiyay Qur'aan ilaa qiyaamaha la akhrin doono, kana hadlaya sida Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u karaameeyay Waliid, laakiin uu diiday karaamadaas. masiirkiisa dambena uu yahay in lagu daalin doono fuulidda tiir ka mid ah naar. Khalid ibn al-Walid kama aanu qaybgelin dagaalkii Badr, sababtoo ah wuxuu ku maqnaa xilligaas dhulkii Shaam, laakiin dagaalkii Uxud ayuu sabab u ahaa in muslimiinta la jebiyo. dagaalkaas waxaynu ognahay in rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu rag shiishyahanno ah amray inay fuulaan dusha buurtii loo yaqiinay Jabal Roma si ay u ilaaliyaan dhabarka dambe ee muslimiinta, laakiin ay dhacday in raggaas ay khilaafaan hadalkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam, ayagoo isleh balgaara xisaabaad ula muuqday mid sax ah, waxaana ay qiyaaseen in dagaalkii uu dhammaaday, Qurayshna la jebiyey. raggaas intooda badan waa ay kasoo degeen buurta, waxaana dhacdadan kor ka daawanayay oo kor kala socday Khalid ibn al-Walid oo xilligaas ka mid ahaa hogaamiyaashii dagaalka ee reer Quraysh. waa nin taatiko si fiican u yaqaano. wuxuu qiyaasay in haddii la laayo raggaas buurta saaran uu
dhabarka ka jebin karo muslimiinta. waana midda dhacday keentayna in Quraysh ayadoo jabtay ay dib u soo kacdo, miisaankoodii dagaalkana uu kor u qaadmo. waxaana dhacday musiibadii Uhud oo 70 saxaabi ayaa lagu laayay dagaalka. gelitaankii diinta xaqa ah, Khalid islaamkiisa dib ayuu u dhacay, wuxuuna islaamay ka hor 6 bilood furashadii Makka oo ahayd sanadkii 8aad ee Hijriga. 2 bilood ka hor dagaalkii Mu'ta ee Khalid ka dhigi doono dhalashada hogaamiye muslim ah oo aanan horay loo arag. Khalid ibn al-Walid iyo dagaalkii Mu'ta. dagaalkii Mu'ta wuxuu ahaa dagaaladii ugu horeeyay ee ay galaan muslimiinta iyo imbaraatoriyadii Room, waxaanu ahaa dagaal ku dheelitirneen dhinaca ciidanka, saanada, hubka iyo meeshii uu ka dhacayay oo ahayd dhul aysan muslimiintu xukumin. in aad dagaal ku gasho meel ay dowlad kale ka taliso waa mid adag. Mu'ta waxay ku taalaa dhulka maanta loo yaqaano Urdun oo aad uga fog magaalada Madiina oo ahayd xaruntii muslimiinta. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu u magacaabay 3 nin in ay hogaamiyaan dagaalkii Mu'ta. 1 waa Zayd ibn al-Haritha, 2 waa Ja'far ibn Abi Talib, 3 waa Abdullah ibn Rawaha. waxaana la socday raggan Khalid ibn al-Walid. wuxuu ahaa dagaal aanu isku dheelitirnayn sidaan hore u soo sheegnay, keentayna in 3daas hogaamiye ay dhiigoodii daahirka ahaa ku daato dhulka ciidankana soo dhaco hogaamiye la'aan. dhul cadow ah, ciidan ka badan, waa xaalad aad iyo aad u adag. isla markiiba waxaa calanka muslimiinta qaaday Khalid ibn al-Walid. muhiimadiisu ma ahan sii wadida dagaalka iyo inuu guul ka gaaro, waa badbaadinta 3,000 oo nin oo muslimiina oo ay ku gidaaman yihiin 100,000 oo askari. fursadda in la wada gumaado ay ka badan tahay inay badbaadaan. Khalid ibn al-Walid Allah ka raali noqday, maalintii koowaad wuxuu galay dagaal aanan horay loo arag, heer ay gacantiisu 3 seefood ku jabaan. maalin dhammaystiran ayuu dagaalamayay. waxaa adag in ciidanka laga bixiyo goobta dagaalka ayadoo dhammaantood aanan la gumaadin. arrinku wuxuu ahaa mid aad u cakiran. waxay u ekayd nin meel bannaana taagan oo lagu sii daayay 100 libaaxa, lana yiri orod haddaad kaga baxsan karto kaga baxso. laakiin Khalid wuxuu dejiyay khitad ah in uu isku shaandhayn ku sameeyay ciidankiisa, kala bedelana guutooyinkii iyo meelihii ay ku dagaalamayeen. wuxuu kala bedelay calamadii ay wateen. qayb ciidanka ka mid ah ayuu amray inay boor kiciyaan ayagoo takbiirsanaya una dhawaaqaya sidii ciidan. arrinkan oo ay Roomaanku u maleeyaan gurmad inuu soo gaaray ciidankii muslimiinta. si arrinkan mid dhab ah u muuqdo, Khalid hal mar ayuu weerar degdeg ah ku qaaday ciidankii Room. intaas wuxuu dejinayay inuu si degdeg ah uga bixiyo ciidanka ayagoo nabad qaba, weliba si karaamo leh oo aanay jab ku jirin. waana midii dhacday, badbaadinta 3,000 oo saxaabi dhul aanay wax taageero ah ku lahayn, ciidan 10 jeer ka badan. waxa ay ahayd guul weyn oo Khalid ka dhigtay dhalashada hogaamiye dhab ah oo badbaadiyay raggaas muslimiinta ah. muuqaalkii wuu sii dheeraaday, inuu intaas kasii batana ma rabo. walaalayaal waxaan idin leeyahay muuqaalka like saara aad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.